بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa xukuuda janal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee sheekadii laga qoray afgembigii dhucushoobay ee waddanka Turkiga. Gaashaanle sare Muharram iyo raggiisii isla saacadihii isku dayga afgembiga bilowday ayaa taliyay guud ee Qaluusi Akar oo aan bilowgii la socon waxa dhacaya ay si cad uga codsadeen inuu hawshani kala shaqeeyo. Markii uu diidana waxa ay kaga jawaabeen inay afduubaan oo meel aan la garanayn geystaan, iyadoo isla markiiba ay ciidamadu afgembigani gudagaleen. Fulinta qorshahooda ay bilaabeen in ciidamadu ay xiraan biriijka isku xidha labada daamood ee Asia iyo Yurub ee magaalada Istanbul, halka ay hawada geliyeen diyaarado dagaal oo kuwa qumaatay u kac u badan yihiin. ragga kale ee magacyadooda ay ku soo baxeen liiska ragga loo filayo inay gaashaanle sare Muharram ay ku garab taagnaayeen afgembiga waxaa ka mid ahaa Janaal Akan Awstuk oo mar ahaan jiray taliyihii guud ee ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale taliyihii hore ee guutooyinka saddexaad iyo labaad ee ciidamada qalabka sida. sida ay wararka xukuumadda ka soo baxay sheegayaan, gaashaanle sare Muharram tirada saraakiisha ciidamada kala duwan ee ahayd ee afgembiga ku taageeraysay waxa ay gaaraysay 1563 oo isugu jira saraakiisha military iyo ciidamo ay u talinayeen ama askarta iyo saraakiisha ku jirta kuliyadda militariga ee saraakiishaas oo mar dambe badankood xabsiga la dhigay. gaashaanle sare Muharram oo markii u dambeysay ciidamadu aan si rasmi ah ugu tirsaneen maadaama uu gaaray da'dii nasiinada, ayaa ay dowladda aaminsan tahay inuu gacan weyn oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhiirgelinta uu ka helay ururka xismaad ee wadaadka reer galbeedka ay isfahmaan ee Fatxullah Gulen. xidhiidho adag iyo wada shaqayn muddo dheer ah oo la lahaa saraakiisha sare ee ciidamada iyo rag badan oo saraakiishu ay ku midaysan yihiin aragtida dhaqdhaqaaqa kooxda adeeg ayaa iyaguna ka caawiyey in howlgalkiisa heerkani soo gaaro. Janaal Muharram waxa uu ku bilaabay in marka ugu horreysay xabsiga la dhigo Qaluusi Akar oo ahaa taliyihii guud ee ciidamada qalabka sida. Muharram waa waayo arag aan dheedheel maskaxda looga qabsan karin, laakiin markaan taagtaro tirsanayay maadaama uu raggii ka agdhawaa oo gacanyareyaashiisu ay ku jiraan goor horeba qorshaha afgembiga lagu qanciyey. waxa uu Janaal Muharram qorsheeyey in Akar marka la afduubto lagu qanciyo inuu saxiixo warmutiyeedka koowaad ee lagu shaacinayo in taladii ay ciidamadu la wareegeen, iyada oo loo adeegsanayo marka hore in lagu qanciyo inuu isagu dalka hogaamin doono, haddii uu qanci waayana noloshiisa khatar la geliyo si loo tuso in uu nolosha ku beddesho saxiixa warmutiyeedka afgembiga. waxaa qorshaha ka mid ahaa in ciidan 200 oo askari ay kooxda afgembiga dhigto gudaha dhismaha taliska guud ee ciidamada Turkiga si ay uga hortagaan in cid aanan iyagu taageersaneen qabsato oo amarro ka duwan kuwa ay rabaan ay ka soo dirto qalabka war isgaarsiinta ee taliska guud. wakaaladda wararka ee Turkiga oo baahinaysa hadallada uu janaalku ugu jawaabay baariyaasha xeer ilaalinta Turkiga ee afgembiga baaraysay waxa uu sheegay in Qaluusi uu qartay inuu ku fashilmay dhowr isku day uu doonayay inuu janaalada afgembiga waday ku qanciyo in ay joojiyaan, isagoo ka warramaya aqalkii markii lagu wargeliyey in qorshihii afgembiga filitaankiisa socdana waxa uu yidhi Janaal Maxamed Deeshli oo ka mid ahaa raggii afgembiga fashilmay ku lug lahaa ayaa ii soo sheegay in cutubyadii koowaad ee ciidamadu afgembiga fulinaysay ay howlgaleen, markaan wixii ka dambeeya ay qaban doonaan cid kasta oo ka hor timaada taladooda. Janaal Akar waxa uu sheegay in mar kale uu u digay Deeshli laakiin aanu dhag jalaq u siinin. arrinta xiisaha leh waxa ay tahay in Janaal Maxamed Deeshli oo hadda xabsiga ku jira kuna eedeysan inuu afduubtay taliyihii guud ee ciidamada qalabka sida isla markaana uu afgembiga qayb ka ahaa ay walaalo yihiin Shacbaan Deeshli oo ah ku-xigeenkii xogayaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee talada dalka haya, oo dabcan ah xisbiga madaxweyne Erdogan ee la afgembinayay. inkastoo uu Shacbaan soo saaray war uu si rasmi ah isaga fogeynayo ficilada uu walaalkii ku kacay, qoraalkiisana ku yidhi hogaamiyahayga aniga waa Rajab Tayyip Erdogan, isaga ayaanu taageersanahay, walaal kastoo aan la dhashay waxba kama bedeli karo arrintaasi. si kastaba ha ahaatee, Janaal Deeshli xeer ilaalinta dacwadiisa baaraysay waxa uu ka diiday inuu wax xiriir la leeyahay Fatxullah Gulen, isagoo ku andacooday in isagu quddiisa uu dhibano u yahay qasab uun janaaladu afgembiga ku howlgeliyeen, iyagoo u sheegaya inay dili doonaan ama xabsi gelin doonaan. taliyihii guud ee ciidamada qalabka sida ee Turkiga Janaal Qaluusi oo ka sheekeynaya hadal dhexmaray isaga iyo janaalka haystay taliska afraad ee ciidamada cirka Turkiga oo ah xarunta Akar
Qalusi xabsi ahaan looga hayay intii howlgalka socday ayaa sheegay in Hakan Afrem oo ahaa taliyihii fadhiisamaha afraad ee ciidamada cirka Turkiga u soo jeediyey inuu afgembiga taageero isagoo u ballan qaaday inuu si toos ah taleefanka ugula hadalsiinayo Fethullah Gulen iyo isaga taleefankiisa soo garaacayo. Laakiin Jenaraal Qalusi sida uu sheegay waa uu diiday in Fethullah Gulen ama cid kale oo afgembiga wada ay xidhiidhaan. Markii ay taliska Aqinji ee ciidamada cirka igeeyeen waxa ay igu dalbadeen inaan saxiixo warmurtiyeedka koowaad ee afgembiga, laakiin waa aan diiday ayaa uu yidhi Jenaraal Qalusi oo intaasi ku sii daray in xitaa uu diiday inuu aqriyo warmurtiyeedka sida awgeed ay ku dul aqriyeen waxa ku qoran iyaga oo filayo inuu ku qanci karo. Inkastoo ay kooxda afgembiga ku fashilmeen inay Jenaraal Aakar ku qanciyaan saxiixa warmurtiyeedka afgembiga, haddana kuma aysan joogsan caqabadahaasi ay sii wateen qorshahooda sidii ku talgalkooda ahaa ayaanay warmurtiyeedka u baahiyeen. Tallaabada labaad ee qorshaha afgembiga ayaa ahayd in warbaahinta lala wareego, laakiin caqabadaha kale ay kala kulmeen waxay noqotay qaabka ay warbaahinta uga howlgaleen oo ahaa mid aanan dhammaystirnayn maadaama ay warbaahinta dalka oo dhan oo aad u ballaaran aanan dhammaantood gacanta ku dhigi karin ama ay hawada ka saari karin. Waxaa iyada aanan hore tallaabo uga qaadin qaybta internetka iyo isgaarsiinta dalka. Tusaale ahaan, markii gabadhii saxafiyadda ahayd ee fadhiday stuudiyaha telefishinka dowladda ay qasbeen ciidamadu ay akhriday warmurtiyeedkii, waxaa go'ay baahintii iyo qadkii internetka ee xarunta warbaahinta dowladda. Arrimahaasi waxa ay ka mid ahaayeen furayaashii markii dambe afgembiga fashilintiisa soo dedejiyey. Ciidamadu waxa ay xoog ku galeen xarunta warbaahinta dowladda waxayna qasab kaga dhigeen in la sii daayo warmurtiyeedka afgembiga ay diyaariyeen oo sida aynu hore u soo aragnay ay ku andacoonayeen inay ciidamadu talada dalka la wareegeen si ay u dhowraan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha. Qorshaha afgembiga ee gaashaanle sare Muxaram waxaa kale uu dhigayay in la xidho labada bariij ee caanka ah ee Bosfor iyo Suldaan Maxamed Al-Faatix, taasoo qudheedu aan bilowgii wada fulin oo ciidamada midda keliya ee labada bariij ka mid ah uun halka laga galo gaadiidka ciidamada ku jireen. Waxaa kaloo qorshaha ka mid ahaa in lala wareego xarumaha degmada iyo dowladda hoose ee magaalooyinka muhiimka ah, iyo sidoo kale in hawada la geliyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidamada oo dul haada taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee Turkiga iyo xarumaha kale ee muhiimka. Qorshaha afgembiga ee gaashaanle sare Muxaram waxa uu dhigayay in madaxweyne Erdogan loogu tago hoteelka uu deganaa oo haddii ay suurtagasho nolol lagu soo qabto, haddii ay suurtageli weydo la qaarijiyo. waana taa ay ku socdeen ciidamadii tagay hotelkii uu deganaa. Sidii warbaahinta Ingiriiska qaarkood ay qoreen, waxaa fashilmay isku daygii la doonayay in la burburiyo diyaaradii uu madaxweyne Erdogan kaga soo noqonayay Marmaris si uu u yimaado magaalada Istanbul. Wararka qaar ayaa sheegayay in kooxda afgembiga ka go'need inay ridaan diyaaradii Erdogan, laakiin lad farsamo oo ku timid qalabka ay u adeegsanayeen dabagalka diyaaradda awgeed ay ka shakiyeen in diyaaradda ay arkayeen ay tahay diyaarad rayid ah oo ay saaran yihiin dalxiisayaal, maadaama ay degmada Marmaris ee madaxweynaha ka imaanayay ay joogeen dalxiisayaal shisheeye oo joogto u taga deegaankaas, isla markaas la filayay inay diyaaradda sida dalxiisayaashu hawada ku jiraan. Dareenkaasi waxa uu kooxda afgembiga ku abuuray cabsi ah in muran dibadeed oo ciidamada iyo dhibaato dhaqaale oo afgembigooda kowsado haddii ay ridaan diyaarad qalad ah. Telefishinka Al Jazeera ayaa ogaaday in gaashaanle sare Yordak Alkool oo isagana la qabtay 3 saac oo keliya markii howlgalka isku daygu afgembiga socday ayaa laga helay liis ay ku qoran yihiin magacyada dad ka badan 80 ruux, kuwaasoo la filayo inay ahaayeen dadka qorsheynaya inay dalka maamulaan marka afgembiga guuleysto. waxaana ku jira saraakiil sare, ciidan, wasiiro dowladda Erdogan ku jiray, balse loo tirinayay inaan xisbiga ahayn, garsoorayaal, xeer ilaaliyaal guud iyo guddoomiyaal gobol. Markani fariimihii WhatsApp-ka ay isweydaarsadeen kooxdii afgembiga waday. Inta badan xaaladda afgembiga waxyaabaha caqabadaha noqda waxaa ka mid ah warisgaarsiinta, waana halka uu marar badan qorshuhu ka fashilmo maadaama ay dhici karto inay kala xidhiidh furmaan dhinacyada qorshaha afgembiga fulinaysa, taasina keento in waqtiga qorshuhu ku socday isweydaarto ama marka xidhiidhka go'o ay ragga qaar iyaga oo ismaamulaya ay qaataan go'aano lafajab ku ah qorshaha. Sida muuqata, kooxda afgembiga Turkiga waday taas ku dhayda xisaabta ayay si fiican ugu darsadeen xilliga ay qorsheynayeen, waxa ayna ka fikireen
inay hab casri ah isgaarsiintooda noqoto, inkastoo aynan ka fikirin in ay hab casri ah isgaarsiintoodu noqoto, inkastoo aynan si uun u urduufeen in war isgaarsiinta iyo taleefanada casriga ee loo adeegsado ay inta badan yihiin kuwa siyaabo fudud loo dhexgeli karo. Taliyayaasha afgembiga waxa ay barnaamijka WhatsApp-ka ka samaysteen ardaa ama koox xidhiidh, halkaas oo ay qorsheynayeen in lagu wadaago amarada hadba caqabadaha cusub ee xalka iyo talada u baahan, iyo guud ahaan habsami u socodka howlgalka afgembiga. Al-Jazeera oo mar kale heshay qaar ka mid ah fariimihii ay saacadihii u dambeeyey ee iskudayga afgembiga WhatsApp-ka isku wedaarsadeen taliyayaashii afgembiga ayaa baahisay tafaasiisha iyo waajibaadka hogaamiyayaasha afgembiga. Sida fariimahaasi ka muuqata, qorshaha fulintiisu waxa ay ahayd 3 habeenimo ee saacadda Turkiga, laakiin waxaa soo dedejiyey arrin aan ilaa hadda si buuxda loo garanaynin, balse la filayo uun cabsi ka timid qorshaha oo ay ka baqeen kooxda afgembiga inuu baxay ama dhaqdhaqaaq ka dhan ah howlgalkoodu ay ka dareemeen. Arrimahani waxa ay muujinayeen in galdaloolooyinka afgembiga qorshayntiisa ay ka mid ahayd booliska oo aan si awood leh loogu soo darin afgembiga. Waxaa suurtagal ah in sababta booliska ay isaga reebeen ay tahay iyagoo og xiriirka muddooyinkii dambe ee si fiicnaanayay ee xukuumadda Erdogan iyo booliska oo la aaminsan yahay in rag badan oo xisbiga talada haya la socda lagu daray hogaankooda sare. Fariimihii la isdhaafsaday waxa ay muujinayaan in saacaddu markii ay 10 habeenimo ahayd ay ciidamadu afgembiga u dhaqaaqeen go'doominta gegida diyaaradaha ee Istanbul, laakiin ay iska caabin aynan filayn ay kala kulmeen ciidamo boolisa oo joogay jidadka magaalada bartankeeda iyo jidka gegida diyaaradaha ay u mareeyeen. Waxa ayna u muuqatay inay tahay sababta keentay in diyaaraddu madaxweynaha oo iyada oo isla gegidii diyaaradaha ee Istanbul ku socotay ay nabad ku soo fadhiisiyaan ciidamadii Erdogan taageersanaa ee ku sugnaa garoonka. Waxaa iska cad in haddii kooxda afgembiga caqabadahaasi ayna kala kulmeen jidka ay uga soo horreyn lahayn garoonka, taasina ay noqon lahayd dhammaadkii madaxweyne Erdogan. Fariimaha la isdhaafsaday qaarkood ayaa muujinaya inay jiraan rag booliska ka mid ah oo iyagoo diyaar u ah inay ku biiraan kooxda afgembiga waday. Waxaa si cad qorshaha afgembigan isla saacadihii u bilowday la ogaaday. Sida fariimaha ka muuqata, taliyayaasha afgembiga ayaa ciidamada ku amriyey inay toogtaan cid kasta oo isku dayda inay ka hor timaada, gaar ahaan ciidanka ammaanka. Dambaalada WhatsApp-ka waxaa lagu arkayey fariimo ay soo sheegayeen mas'uuliyiinta afgembiga in caqabadda ugu weyn ee hortaagan ay tahay taliyaha ciidamada koowaad ee Janaal Dondar. Sidaa awgeed waxay isfarayeen in xabsiga loo taxaabo, iyagoo isu sheegaya in halka uu joogo la garanayo ciidamada ka tirsan afgembiga oo qaban kara ay ka agdhow yihiin. Waxay isu sheegayeen in mucaaradada afgembiga ee Janaal Dondar kala soo horjeedo ayna afka uun ka koobneen, balse uu wado howlgallo fashilin ah oo ciidamada qaar kula xiriirayo si ay uga hor yimaadaan kooxaha afgembiga wada. Waxaa xiiso leh in sida ay isu sheegayaan mar uu Janaal Dondar ku sigtay inay qabtaan markii uu gudaha u soo galay bariijka ay ciidamadu xireen, laakiin markii uu 700 oo tallaabo u jiro ciidanka afgembiga uu isdareemay uu dhinaca kale u baxsaday. Fariimaha WhatsApp-ka waxa ay mas'uuliyiintani isu sheegayaan in tirada ciidamada howlgalka ay ku wada socdeen ay yihiin 20,000, iyadoo sidoo kale ay isku amrayeen in si dhaqso leh loo qabto dadkii la isku ogaa in la xidho, kuwaasoo aynan halkan ku magacaabin, inkastoo ay taliyayaasha qaar magacyadooda lagu yeedhayey oo weliba lagu amrayey inay xoog ku galaan guryaha saraakiisha laga cabsi qabo inay afgembigooda ka soo horjeestaan. Arrinta kale ee muujinaysa in kooxda afgembiga waday ay diyaar u ahaayeen in xitaa ay maalmo sii dagaalamaan ayaa sida fariimahan lagu dheehanayo in ay diyaarsadeen cidda ciidamadooda raashinka gaarsiinaysa 3 maalmood ee soo socda iyo habka ciidamada loo socda oo dhan loo gaarsiin karo. Waxaa fariimaha ka muuqata in saraakiisha afgembiga hogaaminaysay ay si fiican ula socdeen telefishinada oo hadba xogta ay ka helaan ay ku wargelinayeen saraakiisha goobta ku sugan. Tusaale ahaan, markii hore waxay ciidamadu afgembiga xireen bariijka gebi ahaantiisa, laakiin mar dambe waxaa WhatsApp-ka loogu soo sheegay in telefishinka uu sheegay dad badan oo shacib ah oo bariijka ku xaniban. Sidaa awgeed la farayo ciidamada in dadka caadiga ay sii daayaan, wixii boolisa ama ciidan oo kala ay hubka ka dhigaan, haddii ay iska caabin kala kulmaan ay dilaan. Saraakiisha goobta ku sugan ayaa iyaguna si joogta ah hogaamiyaashooda afgembiga ugu soo sheegaya hadba tillaabada ay qaadayaan. Waxaa ka mid ah
xogaha ay soo sheegayeen saraakiisha iyo mas'uuliyiinta militariga ee hadba xabsiyada dhigayaan. Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa qaybtii saddexaad ee sheekadii laga qoray afgembigii dhicisoobay ee waddanka Turkiga. Hadba dib intaan ugu kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.